fadhigii labaad ee xisbiyada mucaaradka ah ee UCID iyo wadani oo isku dhinac ah iyo xukuumadda Somaliland ayaa maanta ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Somaliland. kulankan oo ahaa mid lagaga arinsanayo doorashooyinka soo socda iyo sida loo kala horeysiinayo maadaama ay labada xisbi ee UCID iyo wadani ay ku taagan yihiin in la qabto doorashada madaxtooyada marka la gaaro 13 bisha November iyadoo aan waxba laga horeysin halka xukuumadda talada haysa iyo ururada siyaasaduna ay ku taagan yihiin in la gaaro waqtigii ay dhacayeen doorashada ururadu. ila wareedyo dhuun daloola kulankan saaka qabsoomay ayaa sheegaya in uu ahaa mid ay gurada isku dareen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka oo ay wehelinayaan shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiiladu dibaddana ay ka joogeen guddigiis halqaantay isugu jirtay madax dhaqameedka iyo ganacsatada oo ballantan iyagu soo qabtay kadib markii uu sidaasi codsaday madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. labada xisbi ee UCID iyo wadani ayay la wareedyadani sheegayaan in ay ka biyo diideen in dibadda loo saaro madax dhaqameedka iyo ganacsatada isu xilqaamaya dhexdhexaadinta xukuumadda iyo mucaaradka waxaanu shirku ku sigtay inuu burburo maadaama ay arrintaasi u cuntami weyday dhinaca mucaaradka walow markii dambe lagu qanciyey in ay shirka ka qayb galaan. shirkan ay ku kaliyeysteen xisbiyada mucaaradka xukuumadda iyo guddoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada ayay mararka qaarkood xaraaradiisu erka isku shareeraysay maadaama ay madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradka ahi kolkolka qaarkood ay dhex marayeen weedho kulkululi. dhinacyadan ayaanay midkoodna ka hadal shirkan iyo natiijadiisa waxaase la sheegay in ay dib ka ballameen halkaasina ay kasii anbaqaadi doonaan haddii uu rabbi qadaro. si weyn ayaa loo wada sugaya natiijada ka soo baxaysa shirkan maalintii labaad dhex maraya mucaaradka iyo xukuumadda oo ku soo beegmaya maalin kadib markii uu shalay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi sidan oo kale ula kulmay qaar ka mid ah hoggaanka urur siyaasadeedada cusub ee Somaliland laga dhawaaqay. kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah. ku shubo $1 oo hel 1 GB oo data ah. ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo badh data ah. qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah. ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. qiimo dhimista ballaaran ee bilaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah. ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah. ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah. ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah. ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. garaaca $, xidig 885 afar gees ama shilinka xidig 225 afar gees. ka faa'iideyso qiimo dhibista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom.